bismillahi raxmaan raxiim. Casharkani waxa uu kaga duwan yahay casharadii kale. Waxa uu ku fahansiin karayaa dariiqyada iyo dhinaca faysigeeda iyo qaabka ay u samaysanto. Waxay ku xidhan tahay inaynu fahanno waxa ay yidhaahdaan faultska oo u qaybsamaa qaab geometricaliya oo noocyo kala duwan. Waxaa la yidhahdaa digital information. Fahamka la fahmo faultska iyo jointska oo ah waxaa kaloo tani faham guud inaga siinaysaa inaynu fahno oo keliya maaha macdintu halka ay taalo iyo halka ay ku samaysantay iyo wax kale oo laga eegi karaa taariikh ahaan iyo waqtiga ay samaysantay oo kale laga eegi karo. Waxay yidhaahdaan age-ka. Taasina waxay ku samaysantahay cadaadis sidaynu soo sheegnay iyo pressure fara badan oo ka dhaca dhulka hoostiisa, ha noqoto qaybta sedimentalka ama ha noqoto metamorphika ama ha noqoto qaybtii igneous aynu soo niri. waa inaynu ugu horeysta aynu fahanno faultska waxa uu yahay oo ah dariiqdu halka uu kasoo bilaabmayo iyo halka uu ku dhammaanayo, halka uu fadhiisanayo, isgoysyada uu leeyahay, qaabka geometrical ahaan oo isku bedelayo. Marka ugu horeysa waa inaynu fahanno laba nooc oo faultska uu leeyahay oo kala ah anticline iyo syncline. Anticlineta waxay u samaysan tahay qaabkaasi oo kaar kasoo hoos kasoo baxso kadibna kor ay u baxso haddana hooy u soo degso oo ay u samaysan tahay qaabka qaansada oo kale. Marka dhinaca da'da markaad ka eegto qaansadaasi qaybta ugu hooseysa ee 90 degree ugu beegani waxa weeyaan qaybta xagga da'da layerkii ugu da'da weynaa. Xagga sare ee marka ay qaansadu kor u soo baxdo ama faultsku kor u soo baxo halka ugu sareysana waxa weeyaan ka ugu da'da yar. Nooca kale ee aynu niri waa faultska ee syncline aynu niri, iyaduna waxa u samaysan tahay qaabkaasi xeerada ah oo kale. Waxay kasoo bilaabataa xagga ugu sareysa ee aad diagramka ku arkaysid kadibna kor bay u baxdaa halkii tii hore ay ka ahayd qaansada oo kale ayay iyaduna cakiskeeda noqotaa oo ay kor u taagnaata. Xagga age-ka iyo depositka uu samaynayo jointkaas iyo faultska hadhow toola iman doona. Waxaa laga soo bilaabayaa xagga ay kasoo bilaabmayso faultsku ayaa kii ugu da'da yaraa, halka uu ku dhammaanayana wuxuu noqonayaa kii ugu da'da weynaa ee uu faultskaasi ku samaysmay. Maaha oo keliya in aan goob keliya aad ku aragto syncline ama anticline aad ku aragto ama mid ahaan aad ku aragto, laakiinse waxaa dhici karaa in labada noocba ee faultska aad ku aragto boortii sida diagramkaasi halkaasi ay ku muujinayso. Goobaha kale ee igneous rock macdinta iyada markaad baaraso waxaa loo isticmaalaa sidii kii hore mid ka duwan oo waxaa la yidhaahdaa laba nooc ayay iskugu jirtaa. Labada noocna waxaa la kala yidhaahdaa lomis iyo basilis. Lom iyo basiliskaasi waxay gaar u yihiin markaasi inaad ka baadho dariiqyada ay leedahay goobaha igneous rock. Sida aynu ku arkano diagramkaasi dhinaca hurdiga ama dacarka sida loo yaqaanaba ayaa waxaad ku garan karaysaa in faultkaasi uu ku samaysan yahay qaab line dheera oo hoostaasi maraya. Horena waxaynu soo sheegnay in marka ay magmadu ay ku qabowdo xagga hoose ay ka faa'iido badan tahay marka ay dibadda u soo baxdo. Ka dibadda u soo baxay markaasi waxa weeyaan sida linekaasi diagramka aad ku arkayso kaasi xagga sare soo maraya, ka xagga hoose jiraana waxa weeye isaguna faultskii oo xagga hoose ku jira oo la kala oranayo markaasi lomiskii ama basinkii aad oranayso labadii nooc.